xafiiska xeeladaha guud ee qaranku wuxuu halkan uga digayaa awaamirna siinayaa dadka kala duwan ee soo socda. Number 1 waa in mas'uuliyiinta wasaaradaha oo ay ka mid yihiin wasiirada ay la socdaan waxyaabaha wasaaradahooda iyo hay'adahooda ka socda, waxayna qaadanayaan dayacaad kasta oo ku timaada xafiiska ay mas'uulka ka yihiin si waafaqsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. xafiiska xeeladaha guud ee qaranku waxa uu uga digayaa agaasinka maamulka maaliyadda iyo xisaabiyeyaasha hay'adaha dawladda ku danaysi xafiis dawladeed, raadin faa'iidooyin khaldan iyo in la garab maro xeerarka iyo habraacyada maaliyadeed ee dawladda Soomaaliya. waana in mas'uul kasta oo dawladeed uu ka fogaadaa inuu saxiixo wax uusan hubin ama uusan ogeyn in ay sax yihiin. haddii ay dhacdo in wasiir dawle, wasiir ku xigeen, agaasimo guud ama qof ka sareeya xisaabiyeyaasha iyo howlwadeennada kale ee ka shaqeeya maaliyadda uu amar siiyo, waxa xafiiska xeeladaha guud uu amrayaa howlwadeennadaas iyo shaqaalahaas inay ka codsadaan mas'uulka amarka bixiya inuu siiyo qoraal rasmi ah oo muujinaya amarkaas khilaafsan shuruucda maaliyadda ee uu bixinayo mas'uulkaas, si mas'uulkaas uu u qaato mas'uuliyadda ka dhalanaysa talaabadaas uu qaaday. waana inuu qofkaas si dhaqsaha ugu ribood garay xafiiska xeeladaha guud si waafaqsan qodobka 18aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed si uu xafiiska xeeladaha talaabada ku haboon uu qaado. waa in wasaaraduhu ay ka fogaadaan inay la tacaamulaan shirkado aan lahayn jiritaan sharci oo aan lahayn xafiisyo iyo adeegyo muuqda oo ay bixinayaan. macnaheedu waxa weeye shirkadda wasaaraduhu ay la tacaamulayaan waa inay tahay shirkad xafiisyo leh, la yaqaan meesha degan tahay, la yaqaan meesha dadka ka shaqeynaya, canshuurta bixisa, shati leh, la maamuli karo la yaqaano. laakiin shirkada wahmiyo aan la garanayn dadka iska leh kaliya procedure kala siiyay waa inay ka fogaadaan inay la tacaamulaan. haddii ay la tacaamulaanna mas'uuliyadda ayaga ayaa qaadaya hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaa sidoo kaleeto ka reeban howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiisyada dawladda inay dhex galaan ama isku dayaan inay sameystaan shirkado ay ayagu leeyihiin ama ay saami ku leeyihiin oo adeegyo bixinaya isla wasaaradda ama xafiiska dawladeed uu ka shaqeynayo, si looga fogaado qofku uga fogaado in ay dhacdo ku danaysi xafiis. ilaa marka xafiiska adiga aad furatid, marka shirkad adiga aad leedahay, hadda agaasimo marka tahay oo shirkad adiga aad leedahay ama agaasimo ku xigeen aad tahay oo shirkad aad leedahay ama saami aad ku leedahay, wasaaradda laftigeeda haddii qandaraas soo raasay ayada siinaysa Soomaha. marka waa inuu conflict of interest uu ka fogaadaa ku danaysiga xafiiska dawladda, saraakiisha ka shaqeynaysa dawladda. waxaa la farayaa bangiyada ganacsiga, xawaaladaha iyo hay'adaha kale ee maaliyadeed ee ka diiwaan gashan bangiga dhexe ee Soomaaliya inay u hoggaansamaan dhammaan xeerarka maaliyadda, habraacyada iyo hagista joogtada ah ee uu bixinayo bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo hay'adda FRC, iyada oo ganacsatada Soomaaliyeed maskaxdu ay ku haynayaan in hay'adda FRC aysan xaq u lahayn inay xayiraad kaliyeed ku sameyso akoono shakhsiyadeed iyo mid ganacsi oo ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed iyadoo aan la soo ogeysiin xafiiska xeeladaha guud ee qaranka, waarana aan laga qaadanin maxkamadaha awoodda u leh inay qaadaan ama bixiyaan xayiraadaas si waafaqsan xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. waana in bangiyada ganacsiga, xawaaladaha iyo hay'adaha kale ee maaliyadeed aysan akoono u furin qof ama shirkad aan dhammaystirin dhammaan talaabooyinka akoon furista oo ay ka mid tahay in laga hayo sawir hadduu shirkad uu yahayna shatigii laga qaado. waa in ijraa'aadka loo baahan yahay oo dhan iyo shuruudaha oo dhan loo dhameystiraa marka loo furayo.
bangi kasta oo ku cadaato inuu akoon ka furan yahay aan la garanayn oo wahmi ah qofka iskale uu la garanayn bangigaas waxaa la marsiin doonaa financial institutional lawga sharci qodobada ku qoran oo keeni karta bangiga inuu la wareego bangiga ganacsiga inuu la wareego bangiga dhexe ee Soomaaliya. sidoo kale xafiisku wuxuu uga digayaa shirkadaha wax daabaca inaysan daabicin waraaqa maaliyadeed oo aysan hubinin aqoonsiga shatiyada iyo habraacyada saxda ah ee jiritaanka shirkadaha iyo dadka u sameynayaan aqoonsiyadaas. sababta ay tahay hadaa lacag kaliya shirkada meesha wax daabaca haday lacag kaliya ka qaadato laakiin ay corruption ka qayb ka noqoto corruption kaas lagu soo eedeynaya waxa uu qofka kale u muteystay ayaduna muteysanaysa. kiisaska baarista hadda ku socdo dhanka kale xafiiska xeeladaha guud ee qaranku wuxuu gacanta ku hayaa baaris kiisas kale oo musuqmaasuqa oo ay ku lug leeyihiin wasaarado iyo hay'ado kale oo dawladeed safaarada Soomaaliyeed shirkado ganacsi iyo mid kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir. xafiisku waxa uu kale oo baaris iyo dabagal ku hayaa xawaalado iyo hay'ado iyo shirkado u shaqeysta sidii hay'ado maaliyadeed oo aan ka diiwaan gashaneen shatina ka haysanin bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa kale oo aan bixinin canshuuraha ku waajibay. marka baaritaanadaas oo dhami ay soo gabagaboobaan xafiiska xeeladaha guud ee qaranku wuxuu horkeeni doonaa maxkamadaha awoodda u leh si loo maxkamadeeyo dadkaas looguna qaado qodobada uu sharcigu tilmaamay in lagu qaado. xafiisku wuxuu sidoo kale baaris iyo dabagal ku wadaa shirkado iyo maraakiib iyo shakhsiyaad ku howlan kalluumaysiga sharci darrada ah ee badaha Soomaaliya oo qaybtood xafiisyo ku leeyihiin dibadda ayaga oo ku xiran shirkado ajnabi ah oo wadanka Soomaaliya aan ka diiwaan gashaneen shatina ka haysanin wasaaradaha ay khusayso. xafiiskuna waxa uu qaadi doonaa talaabooyinka ku haboon ee sharciga ah si eedeysanayaashaas loo horkeeno maxkamadaha awoodda u leh hadduu Ilaahay yiraahdo. ugu dambeyn dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin shaqaalaha iyo howlwadeennada kala duwan ee xafiisyada dawladda ka shaqeeya waxaa la amrayaa inay soo gaarsiiyaan warbixinada dambiyada musuqmaasuqa iyo dambiyada kale qaybaha kala duwan ee xafiiska xeeladaha guud ee qaranka iyo booliiska Soomaaliyeed si waafaqsan xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. waad mahadsantihiin.